halkan maanta aynu joognaa waa Zambia waana xilli qalalan biyo mareennadu aad ayay u qalaleen sidoo kale waxay yeesheen dhoobo adag oo ku sababi karta xayawaanka natiijo aad u xun haddaba jeertan labka ahi waxa ay ku nooshahay webilamoodka yar laakiin haddii uu qalalo waxay arrintu isu bedelaysaa dhimasho sida aynu wada fahmi karno tan dhadigeedii hore ayay u socotay daawadayaal haddii uu damco waxa uu joogi karaa waqti intan ka badan wuxuu u baahan yahay biyo si uu isu qaboojiyo iyo inuu dhadiga u la baashaalo halkani waa halka qura ee ay biyo fadhiyaan dhammaan jeertii way ka socdaashay meeshan waayo biyo la'aan ayaa jirta halkan oo qura ayay isugu soo urureen dhammaan jeertii haddaba qoladan waxaa maamula labka awoodda badan xilligan abaarta ayaa dhadig badani ku soo biiray xayntiisa waxa ay ku faraxsan yihiin wada joogga laakiin haddii uu lab kale ku soo biirayo marka hore waxaa waajib ku ah in uu ka adkaado hogaamiyaha ka talinaya meeshan laba aan la garanahayn ayaa yimi sidaa darteed waa in uu isdhiibaa ama uu dagaalamaa go'aankiina waxa uu noqday in uu dagaalamo dagaalka ugu faraha badan leh ee jeerta dhex mara waxa uu ka dhacaa intaa afka miciyaha iyo dhaawacyada iska gaarsiinayaan intan afka waxaa laga yaabaa inay dhiig badan iska keenaan guushina waxay ahaatay xagga hogaamiyaha wuxuu ku sii nagaaday inuu webiga ka sii taliyo waxaanu xuquuq u helay inuu dhadiga maamulo dhammaantood labkii qariibka ahaa wuu nool yahay laakiin waa dibadmeer dib u gurtay qayb kale oo webiga ah oo aan wax dhadig ah joogin ayuu tegey jaaniskii uu aabba carruur leh ku noqon lahaa wuu dhammaaday iminka waayo waa laga guulaystay